xilli aan safar gaaban ugu ambabaxay deegaanka xamal lagu xidh oo hoos yimaada magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa intii aan ku guda jiray safarkayga aan jidka kula kulmay qaar ka mid ah reer guuraaga ka agdhow magaalada xamal lagu xidh oo jabinaya malabka shinidu samayso ee loo yaqaan surta waxaana ninkan iyo saaxiibadii ay surtaasi ka jabinayeen dudun ku taala wadada agteeda taasi oo shinidu ay malab ku samaysay sida ay noo sheegeen waxaana ka wareysanay qaabka ay ku ogaadeen iyo halka malabku ku jiro iyo sida ay ula dagaalamayaan ama ay isaga caabinayaan qaninyada shinidani samaynayso ugu horeyn waxaa wareysi kooban aanu la yeelnay maxamed cabdiraxmaan oo isagoo markaasi gacanta ku hayay shaqadiisa أبغى نقول ربي حالك هذا صارتها محل قبل. صاحب شنو ما كتبه؟ شني. ها. وميسي واحد كيانين. وأنا دبك أصلا وخيامين يا. واقرته. فرقصي اللي دبك أصلا كسر واحد. هذا ميسي وقنينين. وهي هذا الغنين ويش. ها. غنين ويش ودبك صاير سوحي. دبك أصلا سوحي. ها. بركة مرة بنتين لك بكتشر هاي ماشي. يو دمشق واو بالحيوان شنو هذا سوي لي محمد قالي. ولي وات صوته. ولي واودنا. وما ذا يموك هذه السد براسيب بحسيه. يو هذا لقيها على مرة. هري مرة ما وجبت. ها. هاي. يعني هو يفوق هاي مرة يا باش. بركة ما فيك العشتة. ماي. ها. عيال كان هربي يا حسن. أنا واحد كم إذا هيدتك ملب كان كتب سنية. إمتى ما تبغى ساك؟ ساك. ها. إلى سيالة. إلى سيالة دي. ها. بركة يا سيالات كسام يسين ماشي ملب كتير. مرمر قحلا باش جرتو ويقحلا لو هلا ويقحلا دي معناها maxaa lagu garan karaa in meeshan ay malab ku jiro ma iyadoo dul maraysa iyadoo dul saama guuxda marka hore la maqlo ayaa markaana de bay guuxaysaa marka sayna ka soo baxaysaa marka laga garanay ku jirto way hadda inteeba idin ku qaadanaysaa bay la teena soo saartaa malabkan inta ilaahay ka dhigo macnaha de inuu saac ma ay karnee waa macnaha de adigu hadda kale adigu ilaa inta cabaar waa nusii waxaan adigu hore malab u jabis wariga ya dhowr jeer oo shiniya intee kii ugu badnaa intee buu leeyahay ya qaar ba dhowr kiilo laga helaa qaar ba ilaa 3 kiilo laga helaa qaar ba kiriya bar laga helaa qaar ba si oo kala reer badan tahay qaar ba xitaa ayuu maran laga helaa waan ka helaa iyada maran saaka maxaad ka filanaysaa aad hortaagan tahay aad shaqada ku jirtaa in ilaahay oo la weyn oo mid badan nooga dhiib mid badan marka sidee baad u galaysaa qaabka sidee u galaysaa sidee waxaan u galay adu waxaan cunay waxaan daadu saan markaa u galay deegaanku si waa mid way deegaanka shinni intee leeg baa matalan baan joogteen kula tahay ama malab intee leeg baa laga helaa kula tahay deegaanka imika shinni soo badan ma leh waa marmar iyo dhif marmar imay bas ka tagtay shinnidu geedgeed baa laga helaa iyo bishu lama helaa imika sida idin muuqata daawadayaal shinidii waxay ka soo qaxday dudunta kadib markii lagu shiday dabka waxayna ku ururtay geedkan waxaan macluumaad badan laga helaayo waliba dadka maartay reemiga reer guraaga ciyaalkooda oo nafaqo badan ka helayaan oo waasha nafaqo waayaan adigu wax madno marna ma la kulantay shinni sidoo kale loo jibinay ka hormay hadda igu horeysa markii koobaad aan arkaa aad aragto waa gartaa marka koobaad aan arkay dadkana daawashadeeda oo la yaabana nimankana meesha saarnaayeen ama ka yaabay dhid ku xidhan ba jaran camal bay u sameeyeen miyaad arkeen dudumadi shinni ma ku qanin tooriga shinni way qanintay wari hore waa hore way hay laakiin barashkeedu waa wax yar oo diir oo ku gelinaysayo hadii la iska soo dhuftaa hadii aan bal iska soo qabtaa meesha ka geliso malabka shinnidu samayso ayaa waxa laga helaa faa'iidooyin badan iyadoo lagu daweeyo xanuunada intaas ayaan ku soo afmeerinaa waxaan idin socodsiinayaa anigoo Cabdi Casiis Aadan Jaamac